mudanayaal iyo marwooyin martida sharafta leh waxay ii tahay sharaf weyn inaan halkan hadal ka jeediyo markii ugu horeysay shir madaxeedkan muhiimka ah. runtii midowga Afrika waa hay'ad lagu xalliyo dhammaan dhibaatooyinka Afrika. Soomaaliya oo ku faanaysan inay ka mid tahay xubnihii aasaasay midowga Afrika, waxaan ballan qaadaynaa inaan ka shaqayn doono ujeedooyinka iyo yoolka midowga Afrika. waxaanu la shaqayn doonaa dhammaan dawladaha xubnaha ka ah midowga Afrika iyo guud hoosaadyada si aan u xaqiijino higsiga 2063 kaas oo isku xiraya welina xoojinaya dadka qaaradda Afrika si u noqdaan dad wax qabsada. midowga Afrika sanadka 2018 wuxuu u aastay inay noqoto sanadka ay Afrika la dagaalami lahayd musuqmaasuqa, iyagoo halku dhig uga dhigay aan ka guuleysano dagaalka aan ku wadno musuqmaasuqa. Soomaaliya way idinku waafaqsan tahay arrintaas. jidka Afrika bedeli kale ee ka dhigi kara meel xasiloon waa iyadoo aan ka guuleysano dagaalka aan kula jirno musuqmaasuqa baahsan iyo cidda samaysan falkaas burburinaya qaaradda Afrika waa mid hodan ah, bisana dadkeenu wali waa sabool. sidoo kale badi wadamadeena iyo muwaadiniinteenuba waxay wali ku tirsan yahay gargaar. taasina waa mid aan la dabooli karin oo aan cadaalad ahayn. mid kamida furaha caqabadaha iyo fursadaha aan uga gudbi karno arrintaas waa inaga oo ka hortagna la dagaalanka musuqmaasuqa si toos ah iyo si ujeedaysanba, si aan isaga kaashano si cilmiyeysan sidii aan u dhisi lahayn Afrikada aan doonayno una baahannahay inaan horumarkeeda iyo barwaaqadeeda ka shaqeyno. Soomaaliya waxay ka warqabtaa natiijada ka dhalatay burburkii ku dhacay musuqmaasuqa. xukuumaddani waxay xoojinaysaa inay ka dhigato muhiimadda koowaad ammaanka, horumarka dhaqaalaha, adeegga bulshada iyo dawlad wanaagga, taas oo ah tiirarka horumarka. caymiska ugu weyn aan haysano inaan uga hortagno horumar la'aanta ayaa lagu maalgelin karaa haddii musuqmaasuqa aan si sax ah ugala dagaalano guud ahaan qaaradda Afrika. xukuumaddeedu waxay haddaba bilowday dagaalkaas lagu dabargoonayo musuqmaasuqa, waxaana rajo weyn ka qabaa inaan ku guuleysan doono insha Allah si aan waxyaabaha aan aaminsanahay ay ugu noqdaan kuwa na gaarsiiya higsiga Afrikada midoobay 2063. waan idin mahad celinayaa.